maamulada Puntland iyo Galmudug dib waxay ka hor yimaadeen ama ay ka soo horjeesteen sharcigii shalay ay meel mariyeen golaha wasiirada ee la xiriira doorashooyinka qaranka. shalay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee kan axsaabta siyaasadeed ee dalka kaas oo qudhiiso dib u eegis lagu sameynayo waxaana ka soo horjeestay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. maamulka Puntland iyo Galmudug ayaa ka hor yimid ansixinta sharciga doorashooyinka ayagoo sheegaya inaan loo marin ansixinta wadadii saxda ahayd. wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamacade ayaa waxa uu sheegayaa in geedi socodka iyo waliba habkii loo diyaariyay sharcigaas aysan ahayn mid saxsan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in sharci ahaan ay ka soo horjeedaan qaabka loo sameeyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi Puntland ayaa waxa lagu sheegay inay ka soo horjeedaan go'aanka aan waafaqsaneyn dastuurka ee xukuumadda federaalka ay ku talaabsatay sida lagu yiri qoraalka. Puntland waxay ka digaysaa ficilada madaxda dowladda federaalka ay isku gaar yeeshay talada iyo waliba go'aanada masiiriga ee dalka sida geedi socodka dhameystirka dastuurka, hanaanka xasilinta amniga dalka iyo qaybsiga awoodaha iyo kheyraadka dalka iyo doorashooyinka iyo dhismaha hay'adaha cadaaladda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. go'aanka Puntland kaga soo horjeestay tallaabada dowladda federaalka ee qaaday la xiriira sharciga doorashooyinka iyo sharciyada kale ee dalka ayaa ku soo beegmaya xilli Sabtida la qorsheynayo in shir wada tashi ah dowladda iyo wali maamul goboleedyada ay ku yeeshaan magaalada Garowe. wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo la hadlay VOA ayaa sheegay in wax door aysan ku lahayn sharcigii la meel mariyay. xukuumadda dowladda federaalka ay siiyeen xeer lagu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka. annagu ka Puntland ahaan xeerkaas wax hoggaan ka hayna ma jiro. geedi socodku soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyay ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyay inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee ku meel gaarka dastuurka meel gaarka dowladda federaalka barbar marsan. dhinaca kale wasiirka dastuurka ee maamulkaasi Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow ninka la yiraahdo dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ku haboonaan lahayd in ay wada tashi la yeelato maamul goboleedyada ka hor inta aanan la soo saarin sharciyada ay meel marinayaan golaha wasiirada lana gudbinayo baarlamaanka. waxa uu sheegay in maalmihii dambe ay jireen wada tashi la'aan dhanka dowladda ah wuxuuna sheegay in kastoo sharciyan aan wali la horgelin baarlamaanka cabdise waxa uu sheegay in dhanka Galmudug ay ka soo horjeedaan. sidaad ogtahay dalku intii wuxuu qaatay federaal waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wada tashi iyo is-afgarad mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go'aan midaysan lala gaaro bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan axsaabta iyo dowlad goboleedyada. runtii maalmihii dambe xogaa waxaa jiray wada tashi la'aan arrintaas ku aadan dowladda federaalkuna runtii way dadaaleysaa laakiin waxaad moodaa in dadaalkaasi uu yahay dadaal qabiic ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aad moodo inay banaanka ka joogaan. marka waxaan isleeyahay kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay annagu ka dowlad goboleed ahaana waxaan isleenahay arrintaas marka laga reebo maamulada Puntland iyo Galmudug oo si qayaxan ama si toos ah kaga hor yimid sharcigan ay meel mariyeen shalay golaha wasiirada. dhinaca kale waxa jiray walaac badan ay muujinayeen xubnaha siyaasiyiinta iyo waliba hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed dalka ka dhisan. waxaa la tilmaamayaa in sharcigan qodobada ku jira qaarkii ay si toos ah u qayaxayaan in haddii ay doorasho dhici weydo in waqtiga ama talada dalka uu sii haynayo madaxweynaha hadda jira. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo qoraal dheer kaga hadlay sharciga doorashooyinka qaranka iyo waliba golaha wasiirada ay meel mariyeen ayuu soo bandhigay qodobada qaar oo uu sheegay in ay aheeday in wax ka bedel lagu sameeyo. waxa uu sheegay in qodobada qaar ay ku jira sharcigan ay si cad u sheegayaan in shaki la'aan dib u dhac ku imaan karo doorashada soo socota. wuxuuna madaxda dalka u sheegay in loo baahan yahay in si cad ay u dalbadaan waqti kororsi waa haddii ay doonayaan in kuraas ay ku sii fadhiyaan. qodobada qaar ee hadda muranka badan ama walaaca laga muujinayaa qayb ka qodobka 54
ee sharciga doorashooyinka oo xukuumaddu ay ansixisay waxa uu ka hadlayaa in haddii dib u dhac uu ku yimaado waqtiga doorashada waxaa lagu sheegay in madaxweynaha iyo weliba baarlamaankaba ay muddo kororsi ay sameyn doonaan waa haddii waqtiga lagu talagalay ay qabsoomi weydo qodobada kale ee ku jira ayaa waxaa qeybka muranka badan keenay ama aan la qeexin sida ay wax noqon doonaan haddii awoodo ama duruufo awgeeda ay keento in guddiga doorashooyinka wadatashi ay la yeeshaan madaxda dowladda iyo weliba baarlamaankuba ee la xiriira suurtagal ahaanshaha in doorasho ay dhici weyso waxaa la tilmaamay in waqti kordhin loo sameynayo baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha hadda jira